السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل والبا وآد نغا داوانيسان أما آد كدغيسانيسان با كسو دوادا برنامج كالي oo aan uga hadlayno arrimaha siyaasadda Soomaaliya barnaamijkayaga haddii ilaahay idmo caawa waxaa noogu marti ah aqoonyahan siyaasi Soomaaliyeed oo isagu ku dhaqan magaalada St Cloud ee gobolkan Minnesota cariga Mareykanka ساهد محمد يوسف وحو هري وغسو نقضي حلبانada federaalka ku metela maamulka Jubbaland isla sanadka oo xildhibaanka ahaa waa 2009kii xilligaasna waxa uu mar waxa musharax madaxweyne saahid oo isagu ah nin ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa uu mar walba uu aadaa wadanka gaar ahaan waxa uu dhawaan safar ku tagay oo ka soo noqday magaalada Kismaayo barnaamijkeegan waxarnaa saahid nin siyaasi aqoonyahan Soomaaliyeed inaanu ka wareysano xaaladii ugu dambeysay oo maanta ka dhacday maanta oo ay tahay December 12 sanadka 2024 halkaas oo ciidamada dawladda dhexe ee dawladda federaalka iyo ciidamada Jubbaland uu dagaal ku dhexmaray Ras Kamboni kadib markii uu khilaaf siyaasi ah uu soo wajahay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidaas oo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam waaya marka ugu horeysa saahid marka la ku soo dhawo barnaamijkan gaarka ah waxaan rabaa marka ugu horeysa bal si ay dadka Soomaalida ay bal si fiican kula socdaan adigu xilligee ayaad ka soo shaqeysay Jubbaland wax yar nala soo wadaag taariikhdaada dhinaca siyaasadda iyo arrimahan dhinaca dawladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxay ahayd horta magacay waxa la yiraahdaa Sheekh Zaahid Maxamed Yuusuf waxaan macnaa waxa weeyaan ku biiray dhaqdhaqaaqii macnaa waxa weeyaan dib u xoreynta Soomaaliya macnaa waxa 2000 macnaa waxa weeyaan 6kii abuurmay oo ka koobmaa 3 qaybood oo la dhihi jiray ARS macnaa dhaqdhaqaaqaas macnaa waxa weeyaan waa markii Ethiopia macnaa waxa weeyaan ay macnaa soo gashay macnaa waxa weeyaan magaalada Xamar ama ay fariisatay taliskeenii ciidamada wasaaradii macnaa gaashaandhigga markaas ayaan macnaa waxa weey waatii urur waxa sameysay dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed la dhaho oo ka koobnaa qurba joog iyo macnaa waxa weeyaan baarlamaanka xorta in loo bixiyay iyo macnaa maxaakiimtii marka halkaas ay horta dhaqaaqay ku soo bilaabmay kaasoo markii dambe isku bedelay macnaa waxa weeyaan in aan la heshiino dawladdii macnaa waxa weeyaan macnaa Cabdullaahi Yuusuf sidaasna uu markaas madaxweyne Sheekh Shariif macnaa Sheekh Axmed uu ku noqday madaxweyne oo ka dambeeyay Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay u naxariistay markaas kadib aniga waxaan ka mid noqday maadaama dhaqdhaqaaqaas ku jiray qaybtii macnaa waxa weeyaan la heshiisay macnaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf oo 275 kala loogu daray macnaa waxa weeyaan lagu saacidiyay 275tii xildhibaanadii waqtigii Cabdullaahi Yuusuf marka waxay isku noqdeen xildhibaano aad u fara badan oo 550 oo wadanka uu soo qaadi karin laakiin loogu talagalay maslaxad iyo bal in macnaa waxa weeyaan marxalad looga gudbo markii marxaladii looga gudbayna sidii hore ayaa lagu celiyay 2012kii oo macnaa waxay noqotay in macnaa waxa weey 275tii hore lagu soo celiyo marka aniga taariikhdeeda markaas ka soo bilaabatay marka xildhibaan waxaan noqday 2009kii bishii January actually sanad kadibna waxaan ahaa xildhibaankii ugu horeeyay iska casila markaan arkay macnaa waxa weeyaan wax shaqo oo macnaa waxa toos ah oo ummadeedu u qaban karay inayna jirin
oo meeshii layskuna badan yahay isla markaasna macnaha aynay jirin macnaha dhaqaalo intaas oo macnaha 550 lagu dhaqaalo lagu siiyo markaas ayaan macnaha iska casilay 2010kii bishii January. waayahay waa hagaag barnaamijkayagan waa ka duwayaa dabcan xiisona waa leeyahay waxyaalo badan oo mugdi ah oo taariikhda ama siyaasadda Soomaaliyana maanta way dhacday waana sababtaan hadda caawa barnaamijkan kugu martiqaadnay inaanu kugu wareysano inkastoo marar badan ay isku dhacaan ciidamada kala duwan ee dowladaha Soomaaliya waliba sanadadii ugu dambeeyay laakiin hadda waxaad moodaa markii ugu horeysay inay gacan isula tageen iyagoo waliba siyaasadna ay jirto ciidamo maamul goboleed iyo ciidamo ka socda dowladda federaalka dagaalkan waxaan u malaynayaa intaan ogeynaa dagaalka culusa ma jiro waa dagaalka ka dhacay maanta Ras Kamboni ee dhexmaray ciidamada madaxweyne Axmed Madoobe ee Jubbaland iyo kuwa federaalka inta aan bal siyaasad ahaan aanan u gelin sidee maanta wax u dhaceen intaad adigu hadda aad warka ku haysid. bismillahir rahmaanir rahiim horta dagaalkan waa la filayay inuu dhacayo oo macnaha waxa weeyaan muddo ayuu hadda intii Axmed uu doorashada sameeyay oo macnaha lagu doortay bishii macnaha November 25keedii lagu doortay macnaha magaalada Kismaayo dawladdu waxay bilowday in aysan doorashadaas aqbalin isla markaasna ka hor joogsato in uu macnaha waxa weeyaan sameeyo macnaha xafladii macnaha waxa weeyaan caleemasaarka markaas laga bilaabo dawladdu waxay bilowday in ay Ras Kamboni ay ciidamo macnaha ku soo aruuriso oo macnaha ciidamo badan ay keentay ayadoo markii hore macnaha waxa weeyaan iyo markii dambeba ku marmarisotay in ay buuxinayso meelihii ciidamada ATMIS ay ka baxeen ciidamada ATMIS ee Kenya macnaha waxa weeyaan Ras Kamboni iyo meelo u dhadow waxay ka baxeen macnaha waxa weeyaan 2 bilood ka hor bishii September mise intaan anigu Kismaayo joogay ayay ka baxeen macnaha waxa weeyaan meeshaas laakiin markaas intaan doorashadu dhicin waxba dawladdu macnaha talaabo amaysan qaadin laakiin markaan waxay u aragtay si Axmedna macnaha ula dirto oo Axmedna ugu diido caleemasaarkiisa in ay ciidamo keento marka ciidamadaas waxay Axmed ku noqdeen ciidamo macnaha waxa weeyaan macnaha khalkhal gelinayo macnaha nabadgelyadiisa siiba markay haddana ay si toos warqad dawladda federaalka u soo saartay ay tiri Axmed macnaha maxkamadda gobolka Banaadir hala soo xiro warantiina loo soo gooyo lagu soo xiray marka taas baa marka arintii sii dhabqisay oo ka dhigtay macnaha waxa weeyaan arin tension ah oo xoog u kacsan waa kii Axmed markaas yiri markuu arkay in ciidamadii ay soo socdaan oo maalin kastaba intaasoo diyaarado la keenayo in uu macnaha ku hanjabay haddii ciidamadaas la celin waayo muddo 15 beriya macnaha waxa weeyaan dagaal baan qaadaya asaguna wuxuu bilaabay in uu wax badan uu ciidamo asagana ku soo guro meelihii u dhadhawaa macnaha Ras Kamboni oo ay ka mid tahay Kuda Buulo Guduud iyo macnaha waxa weeyaan meelo badan oo dhulkaas ay kana xeebta iyo Kuda marka taasaa keentay waayahay qasaaraha maanta dad badan waxyaalo badan bay isdhex marinayaan dagaalkuna waxaa la leeyahay wuxuu socday in muddo ah adigoo xogaha haysid dagaalka maanta halkaa ka dhacay ama ha noqoto dhinaca Jubbaland ama ha noqoto dhinaca ciidamada kale ee dowladda federaalka qasaaraha intaa ka waraysid maxaad xog haysaa waxaan maqlaynaa sidoo kale dowladda Kenya ilaa xoggaala inay iyadu naftigeedu sheegan in ciidamo ay isu soo dhiibeen ama baraha bulshooyinka lala wadaagay muuqaalo ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda dhexe ee ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Xasan Sheekh uu keenay Ras Kamboni inay isu dhiibeen ee dowladda Kenya xogahaas maxaad ka haysaa adigu intaad dagaalkaas aad buu u kala laa saakuna bilowday saaka aroortii uu bilowday labada qolo kastaba waxay leeyihiin qolada kale ayaa dagaalka soo qaaday dagaalkuna macnaha afka waa laga hayay inuu dhici doono
laakiin haddana waxaa la islahaa ma dhacayso in laba ciidan oo isla hal dowlad ka tirsan inay isdagaalaan oo laakiin waa la isku hanjabayaa keliya saasaa markii hore loo malaynaya laakiin saaka uun sin lama filaana ayuu ku dhacay ma ballantii oo hal maalin ka dhinayd axmed qabsaday darteed miyuu ku dhacay oo jubbalandna bilowday ma dowladda macnaa waxa weeyaan macnaa ciidamadeeda bilaabay markay ogaadeen inay ciidamo badan uu axmed iyo hub badan uu keenay macnaa agagaarkooda meel ilaa 35 kilomitir u jirto raaskamboni uu keenay taasaa bilowday ayakii baa tashanka daad lama yaqaan laakiin dagaalka si lama filaano saaka ku bilaabmay aroortii hore waana aad buu u adkaa hub adagna waa la isku adeegsaday markii hore wuxuu ahaa macnaa waxa weeyaan mar boqolaa la riixayay laakiin markii dambe dagaalku hal dhinac buu u batay ciidamadii macnaa dowladda federaalkan meesha waa laga saaray qaar macnaa waxa weeye saa sheegtayba waxay u carareen macnaa waxa weeyaan faraxdkooda wuxuu galay Kenya oo ciidamadii Kenya oo xuduud ilaa raaskamboni xuduuday saaran tahay bay ka gudbeen qaar waxay macnaa Jubbaland say u hadashay nin oo sarkaal la wareysanayay wuxuu sheegay in qaarna ay gacanta ku hayaan labada dhinacna ay macnaa dhimasho iyo dhaawacba u jiro waayahay dagaalkaasi waxa uu dhex maray maamul goboleed ciidankiisa iyo ciidanka dowladda federaalka waxaan u malaynayaa su'aalo fara badan oo dhinacyo badan leh ay ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta aqoon-yahanka iyo shacabkuba ay isweydiinayaan intaanan taa aan u gelin xasan sheekh iyo axmed madoobe mudday hadda intii ugu dambaysay way iswateen ama saaxiibay ahaayeen xogta waad haysaa maadaama dhulkana dhawaan ka timid maxay isku khilaafeen oo ugu weyn oo xamar lagu soo kala dhaqaaqay intaad kadigu ka warhaysid macnaa waxa weeyaan axmed saa sheegtay axmed madoobe iyo dowladda xasan sheekh way is wateen ilaa markii la doortay 2022gii bishii May 15keedii waa is wateen waana isku dhawaayeen waxaana macnaa waxa weeyaan la sheegaa axmed inuu macnaa dowladdaas uu taakulayntuu taakuleeyey inuu ku guulaystay oo uu macnaa Jubbaland u helay ra'iisul wasaare markii ugu horeysay taageeritaankii mucaaradka ahaa marka farmaajo ahaa maadaama marka dowladdii inuu ka helay sheerkii uu macnaa waxa weye markii horeba uu ku darsaday inuu ka helay marka muddo 2 sano iyo bar ah oo xasan shaqaynayay waa la isla shaqaynayay xasan markii hore waa kii sheekada ku bilaabay macnaa waxaan la dirirayaa al-shabaab oo macnaa uu ka bilaabay labada gobol ee macnaa ah Hirshabeelle iyo macnaa galmudug uu ka bilaabay dagaalo badanna uu ku galay oo muddo sanada socday waxa la isku ogaa sanadka labaad in macnaa waxa weeyaan la keeno macnaa waxa weeyaan ciidamada iyo hubka iyo waxyaabaha in la keeno dhinacan koonfur galbeed iyo Jubbaland oo shabaabka halkan lagala diriro marka waxyaabihii la isku waayay waxa kamid ah macnaa waxa weeyaan oo axmedna uu ka cawday oo waxyaabuhu uu ka sheegtay ay kamid tahay in sidii macnaa waxa weeyaan Hirshabeelle iyo galmudug macnaa dowladdu ay u maalgelisay ama u hubaysay macnaa waxa weeyaan inaan Jubbaland loo hubaynin amaba lagala qayb qaadan xataa ciidamadii la yiri waa loo soo diraya sahay xataa in la soo siin oo axmed uu sahaydi iyo waxa ka bixiyay marka taas waa midda labaad oo isku khilaafeen waxay tahay xasan oo macnaa waxa weeyaan madaxweyne xasan oo runtii macnaa noqday macnaa nin raba inuu keligiis shaati tusho oo macnaa waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah oo aan la garanaynin macnaa say u dhacayso iyo meelahay ka dhacayso iyo weliba aan tabaabushaheeda la haynin oo hadda oo 2 sano iyo bar ay ka dhamaatay wax tabaabusho ah oo macnaa arrinta uu leeyahay qof iyo cod baan sameynaya ayna jirin oo uu kala diray macnaa guddigii doorashada macnaa waxa weeye xaliimiyey waqtigii farmaajo
oo aad iyo aad ugu dhowaa inay doorasho samayn karaan sidii waagaasba u dhaheen xaliima u tiri waxaan samayn karaa ilaa 9 bilood baan ku samayn karaa hadduu guddigaas uu sii jiri lahaa uu wadi lahaa maybe inuu samayn lahaa laakiin muusan rabin guddigaas guddi kale oo asaga u gaara ayuu rabay wuu kala diray guddigii macnaa waxa weeyaan macnaa ayakana macnaa waxa weeyaan macnaa guddigaas guddiga doorashooyinka guddigii kale ee garsoorka uu soo bandhigay dowladdii farmaajo na wuu kala diray guddigii macnaa waxa weeyaan musuqmaasuq la dagaalanka oo asagana guddi jiray ahaa wuu kala diray marka xasan wuxuu u muuqday inuu keligiis rabo inuu macnaa dowlad asaga uu asaga macnaa waxa weeyaan kowna ka yahay dhammaadna ka yahay inuu samaysto marka markii hore axmed waa kula socday laakiin macnaa waxay khilaafka weyn wuxuu yimid markii shirkii macnaa 2023gii la galay ee loogu daray macnaa 3 maamul goboleed hirshabelle yaan dhihine macnaa waxa weeyaan macnaa galmudug iyo hirshabelleba ku dar haa sax iyo macnaa koonfur galbeed iyo jubbalandba in hal sano loogu daro isla markaasna shirkaas wada tashiga ahaa isla markaasna bisha juun la qabto doorashooyinkii macnaa degmooyinka ama consulkii degmooyinka lasoo dhiso bisha November oo 2024 kana doorashooyinkii guud ee macnaa gobolada la qabto macnaa shuruudahaas ku jiray waxa kaloo ku jiray macnaa waxa weeyaan in macnaa waxa weeyaan dowladda laga dhigo macnaa waxa weeyaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in laga dhigo oo ra'iisul wasaaraha meesha laga saaro waxyaabihii ay madashaas isku soo ogaadeen macnaa xasan markuu macnaa dastuurka yimid 4 qodob ugu horeeyay uu sameynayay waxyaabo badan ayuu ka tanaasulay ayakiina lama tashan mana u sheegin laakiin hadda midda axmed macnaa ka xanaajisay waxay tahay sanad baa idinkugu daraya guddigii doorashadana anaa samaysanaya sanad kadib baa doorashada idinku gelaysaan aniguna sanadka kale ka dambeeyo oo 2026 kan gelaya adinkuna 25 ka gelaysiin isla markaas guddiga doorashada oo waagaas la isku ogaa in gudoomiyaasha gobolada ay ka yimaadaan laba qof ay keensadaan xasan wuxuu yiri macnaa kaliya keensanay marka taas ugu weyn oo axmed uu ka xanaaqay in macnaa waxa weeyaan asaga macnaa waxa weeyaan la yiraahdo macnaa waxa weeyaan guddiga doorashan ku sameynina 2025 kan meesha waa kaaga dhantahay dowladdaana maamulaysa macnaa waxa weeyaan doorashadaas taas ayuu ka xanaaqay taas ayuuna la marsiin kari waayahay doorashadii hadda dhacday ee ka dhacday Jubbaland dabcan waa ognahay axmed muddo badan buu isagu keligii wuxuu ka ahaa madaxweyne ama doorashooyinka sidaas oo kale qaban qaabinay xasan maxay safarkan markii ka horeysay oo axmed sidan oo kale doorasho uu qabtay oo sida ku soo baxay madaxweynenimada xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii taageeray dabcan marka waxa laga yaabaa farmaajo siyaasadda iska soo horjeedeen inuu mucaaradnimadiisa u sameeyay qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ka mid tahay Puntland iyada qabsatay doorashooyinkeeda iyada gudiyadeeda magacaabatay xildhibaanadeeda iyada magacaabatay dini baan ku soo baxay mana uusan oran dowladda ma aan aqoonsanin waxaan filayaa caana shubkii ama inaugurationkii cali masarkii uu tagay maxay doorashadan marka xasan uu uga go'aansaday inuu ka dagaalamo tan hadda uu isagu markale hadana axmed isagu marka isdoortay ama doorashadu isagu ku soo noqday hadda muxuu uga daday oo uga go'aansaday inuu ka dagaalamo waa yaab waxa waaye macnaa waa xasankii shalay ee xasanka maanta sidoo kale macnaa xamzii shalay xamzi wuxuu ka ahaa asagana guddiga madaxa guddiga doorashooyinka Jubbaland 2019kii ninkii shuruudaha adag nagu xiray 3 keen halan kala baxaya isla markaasna si lama filaan u yiri doorashadii 3 bari kadib aan qabanaya waxa taa caalamkii yaabay warnimanka musharaxiinta waqti si habraaci macnaa doorashooyinka oo ahaa horta in la doorto xildhibaanimada xamsi waa ka booday wuxuuna yiri macnaa waxa weeyaan marka hore waa inaa adinku macnaa musharaxiintu waa inay lacag 30 kunana waa inay soo bixiyaan waa inay soo sharaxaan macnaa waxa iyadoo ma la dooraninba xildhibaanadii marka habraacina waagaas uu diiday waqtigii uu yareeyay macnaa wuxuu lahaa macnaa waxa weeyaan doorashadan macnaa waxa weeyaan anaka xaq u leh oo Jubbaland xaq u leh
guddiga doorashooyinkaan nahay marka sharcigeeni siduu ku taala saasuu lahaa maantana wuu ka soo horjeedaa wuxuu leeyahy doorashada axmed uu qabsanayo waa khalad marka runtii waxa waaye halkaas madaxweynaha xasan sheekh maxamed iyo macnaa waxa weeyaan xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yiraahdo maxamed xamzaba ra-iisul wasaare xamzaba ceeb weyn baa kala kulantay sababto waxa waaye waxaa jira macnaa waxa weeyaan gabay carabi oo dhahay laa tanha can khuluqin wataatiya mithlu caarun calayka idaa facalta cadiim macnaa waxa weeye wax dadka ha u diidin laa tanha can khuluq macnaha ha diidin macnaha akhlaaq macnaa waxa weeye adiguna oo ha dhihin waxaas waa wax xun waa akhlaaq xun ha dhihin isla markaas isla wixii adigu ha la imaanin haddaa saas samayso ceeb bay kugu tahay weyn marka ceeb weyn bay kala kulmeen runtii arrintaas xasan sheekh iyo macnaa waxa weeyaan xamzaba sababto waxa shalay maxaa sax ka dhigay maantana maxaa khalad ka dhigay maxaa isbedelay macnaa waxa isbedelay keliya waxa waaye shalay macnaa waxa weeyaan farmaajan ku cariirinayna maantana annakaa rabna meeshuu farmaajo maray inaan marno oo aan macnaa waxa weeyaan nalagu samayn marka waa arrinta ceebta meesha weyne taalle ee hadda lagu haysto dowladda xasan sheekh waayahay mid ka mid a waxyaalaha xasan sheekh ay hadda jubbaland isku dagaaleen ama la leeyahay waxaa ka mid a nidaamkan uu xasan sheekh damacsan yahay inuu doorasho ku qabto ay dadka qaarkood u arkaan nidaam uu isagu doonayo inuu xukunka uu haddana mar kale oo xasan sheekh uu ku soo noqdo doorasho ka dhacda dhinaca federaalka marka xasan sheekh adiga aragtidaada siday kula tahay inuu isaguna damco inuu ama dastuurkii uu bedelo oo muddo badanna dadkii laga qaylinayay ama isaga inuu doorasho dhinaciisa uu ka samaysto oo markaasi fursad u siinayso inuu mar kale uu kusoo noqdo isagan kan maamulka gobolka ama iraada jubbaland oo xasan uu kasoo horjeesto runtii waxaa la yaab kale weeye oo axmedow meesha jiro weeyaan sababta waxa waaye soomaaliya muddo hadda 24 sano ah macnaa dowladda ayaa is soo bedbedelayay waa soo hitiqlaadinaysay mar kastaba macnaa waxa weeyaan waa soo dhitinaysay dhibka ugu weyn jira waxa waaye madaxweyne kastoo yimaado wuxuu rabaa waxqabadkiisa waxyaabaha ugu weyn oo waxqabadkiisa ah waa inuu soo noqdaa ugu weyn marka waxa weeyaan taas ayuu dhaqaale iyo wax kasta gelinaya labada sano hore waa waqti intuu meesha xafiisyada kala baranayo labada sano dambana waa campaign waay marka waxa weeye wuxuu rabaa inuu qof kastaba asaga uu samaysto inuu macnaa soomaalidii macnaa arrimaheedii uu dhexda soo dhigo oo uu dhaho halkaas maxaan ku heshiinaa maxaan isla garanaa meeshaanna waxa weeyaan in wada heshiis ayaa macnaa waxa dowladdii maxamed siyaad maxaa loo riday macnaa heshiis la-aan iyo macnaa dadka aynan la tashanaynin marka dowladahan dimuqraadiga isku sheegaya waxaa la rabaa inay macnaa soo dhigaan macnaa arrinta miiska soo saaraan oo si cad macnaa xalaal maalin cad baa lagu qasho laakiin madaxweyne kastoo yimaado wuxuu rabaa inuu mid asaga u shaqaynaysa uu sameeyo guddiga doorashooyinka inuu asaga samaysto maxkamadda maba ku aadaan laakiin maxkamad asaga raacaysa inuu samaysto baarlamaanka inuu caburiyo macnaa baarlamaankeena waa hay-adda keliya ee macnaa intii lasoo samaynayay mid kastaba uu madaxweynaha u shaqaynaya baarlamaanka madaxweynuhu u shaqeeya waana hay-addii la rabay macnaa waxa weeyaan in ay sharciyadana dejiso madaxweynaha iyo macnaa hay-adda fulinta labadaba ay u yeedho waxay khaladaada ay galaan macnaa meesha jack and balansiga oo macnaa dowladda soomaaliya waa baarlamaanka laakiin baarlamaanka markiiba jeebka lagu ridanaya maxaa loogu ridanaya 40 ka mid a baarlamaanka wasiiraa laga dhigaya dowladdiyaa lagu daraya marka waxa weeyaan macnaa waxaa mushaar kale ay heleen macnaa waxa weeyaan markasta loo yelo waxay u yihiin marka dowladda marka halkaasaa cilladda ay ka jirtaa macnaa waxa weeyaan liader macnaa ka fakerayo ummaddan macnaa tareenkeeda macnaa si saxa u wad oo jidka saxa ku wad ma jirayso nin kasta wuxuu rabaa inuu asaga macnaa waxa way tiisu raba marka maanteeto axmed doorashooyinka u qabsanayo runtii macnaa sidii markii horeba u khaldanaayeen bay haddana u khaldan yihin waa u jeednaa waa caadi oo tan hadda u qabsaday tii 2019kii
kama duwana sidoo kale tii kale macnaa 2016kiina kama duwana oo asagaa shaatiga tolanay laakiin asaga waa maamul goboleed asaga waxay ka halaabo macnaa maamul goboleedka Jubbaland ka halaabay laakiin xasan waxa ka halaaba dowladda federaalka oo dhan bay ka halaabaysaa marka taas waxay keensanaysaa macnaa madaxweynayaasha meesha soo maraya markay rabaan ayagu inay sadbursi sameeyaan inay soo noqdaan inay macnaa dastuurkii la isku ogaa bedelaan oo hadda sidoo xasan afarta macnaa waxa dastuurka waxa ka dhinaa 9 qodob 9 qodob dhamee baa la rabay iyo macnaa maxkamadii oo garsoorka dhis intaas laga rabay xasan macnaa inuu sameeyo laakiin macnaa wuxuu sameeyay inuu dastuurkii bedelaba waxaad war u haysaa muddo badan inuu ka taagnaa khilaaf maamul goboleedyada siyaasiyiinta dad badanna ay afkaarad kala duwan ay ka qabeen sida loo dhisayo ciidan military oo uu Soomaaliya yeelato ama ciidan qaran anagoo eegayna waliba ciidankii qaran ee Soomaalida uu dhisnaa sidoo uu noqday jabhado ama rag qaarkood sidii dawladdu ay ugu isticmaashay yani mucaaradadii ama jabhadihii ku kacay waa ognahay sidoo kale Soomaaliya hadda sababaha deynta looga cafinayo ama sababta ay leedahay dawladda gaar ahaan xasan sheekh uu leeyahay ciidamada Afrikaanka ah ee nabadda sugaya ka baxaan inay tahay in ciidanka qaranka in uu la wareego amniga arrintan dhacdadan dawladda federaalka ay u isticmaashay ciidankii siyaasad oo internal ah fadeexad intee la eg bay ku keenaysaa internationalka xaqiisa iyo waliba inay ciidankan uu noqdo ciidan wadanka si hanan kara laha inay noqdaan fadeexad intee la eg ku keenaysaa afkaartaada samaxad ka qabtaa dawladdu inay u isticmaasho ciidanka militariga waliba inay kula dagaalanto maamul goboleed ama establishment ah oo marka qaarkood lagu xallin karo arrimaha qaarkood si siyaasada arrintan ciidanka militariga iyo dawladda federaalka isticmaalkiisa sidee kula muuqataa runtii horta ciidamada in la madeeyo oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka bay ciidan Soomaaliya oo la mideeyo oo laba ciidan oo kala sareeya la sameeyo oo ah ciidan macnaa waxa weeyaan maamul goboleedka uu leeyahay iyo ciidan federaal macnaa isteediyada macnaa waxa weeyaan saasay macnaa ay sax ku yihiin oo macnaa waxa hadda Mareykanka inaan joognaba macnaa local police oo waxa jira macnaa waxa weeyaan Minnesota police iyo kuwa macnaa waxa weeyaan federaal ayaa jira marka ciidamada in horta saas loo dhiso oo macnaa waxa weeyaan ciidamo macnaa waxa weeyaan hal ah oo macnaa dawladda macnaa ka amar qaata inay jiraan oo isku dhafa inay jiraan horta waa mid la rabay hadda ka horna waa la soo qorsheeyay oo waqtigii farmaajo in 18,000 oo ciidan ah oo federaal ah la dhiso laakiin maamul goboleedyada diiday marka maamul goboleedyadan macnaa waxa weeyaan iyo dawladda runtii macnaa waxa waa macnaa wax iska soo horjeeda waay wixii lagu xallin lahaana waa inay jirto macnaa waxa weeyaan macnaa baarlamaanka inuu si fiican u shaqeynayo waa in hay'ad garsoorna ay jirto oo u diidayso waxaas macnaa wixii oo sharciga oo macnaa waxa weeyaan baarlamaanka soo dejiyay oo u dhaxeeya dawladda federaalka maxay xaq u leedahay dawladda goboleedyada maxay xaq u leeyihiin macnaa maamul goboleedyada dhila maxay xaq u leeyihiin in horta taa la isku afgarto oo macnaa sharci laga sameeyo way kadibna maxkamadaas garsoorka ee la dhisay ay markaa wixii khalad ah ay iyadu qaado ayaa la rabay marka wixii oo dhan ma jiraan macnaa maamul goboleedyadii waa ul ku macnaa waxaa la dhihi jiray wax ku taagan macnaa dawladdii federaalka ayay waxay rabtaa inay ciidankii ay macnaa ay sheeganaysay inay kula dirirto hadda waa soo baxdayba macnaa waxyaabihii hadda ay u diidayeen maamul goboleedyadu inay ciidamadooda oo dhan ay federaalka u dhiibaan macnaa waxyaa ka mid a maanta federaalka muxuu sameeyey macnaa inuu gobol ka mid ah uu ku garaaco ciidamada muran siyaasadeed darteed uu dagaal ku galo marka waxa weeyaan taas ayaa waxay keensanaysaa is-aaminid la'aanta dawladda iyo maamul goboleedyada marka dawladda iyo maamul goboleedyada waxay u baahan yihiin sharci in horta loo dhiso oo midba midka kale qolo kastaba ay sharcigeeda taqaano oo hadhowna sharcigaas maxkamada xukunto taasaa la rabaa tii ma jirto marka nin kastaba meeshuu joogo ana amiir wa anta amiir
من يسوق الحمار. waayahay weli waxaanu dhexda kaga jirnaa barnaamijkayagii waraysiga ahaa. barnaamijkan waxaa noogu marti ah saahid yuusuf oo aanu ka waraysanayna xaaladda maamul goboleedka jubbaland iyo weliba khilaafka siyaasadeed iyo weliba hadda gacanka hadal isu bedelay u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya. waxaan rabaa inta aanan ka bixin arrimahan dagaalkan dad badan waxa ay qabaan in hadda arrinkan ay keenayso in kooxda ay dhinacan dowladda federaalkana kala dagaalamaysa maamulka jubbaland uu kala dagaalamayay al-shabaab in ay arrintani u noqon karto fursad ay markaa iyagu naftigooda ay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba ay ku guulaysan karaan haddii gaar ahaan uu noqdo dagaalkani inuu noqdo dagaal sii socda. caalamku naftigiisana aad bay uga hadleen in aanan maamulka jubbaland iyo federaalka aanan dagaal dhex marin, taasna ay siinayso fursad al-shabaab. arrintaas haddaad qiimaysid maxay kula tahay? al-shabaab waanu ognahay inuu siduu u joogo waddanka iyo gaar ahaan koonfurta soomaaliya. maxay dhibaato u keensan kartaa dagaalkan ka dhex dhashay maamul goboleedka jubbaland ciidankiisii iyo ciidankii federaalka? axmedow, wallaahi intuusan markii hadda laisku goodinayo oo ilaa 2 toddobaadii lasoo dhaafay ahaa, aniga waxaan aad iyo aad macnaha waxa weeyaan uga cabsi qabay in haddii labadan ciidan isdiriraan inay shabaabkuna ayakuna ay dagaal weyn oo macnaha waxa weeye lagu jabo inay ayakuna geystaan, oo ama ay labadan ishaysta dhexdooda ka geystaan oo ayakina dagaal saddexaad ku qaadaan, ama meelo kale oo ciidamadan laga soo kaceeyey ay dagaal kale ku qaadaan. waa cabsidaan qaba wey. maanta markaan maqlay marka dagaalkii macnaa wuu socday wuuna dhammaaday oo macnaa labadii qolo unbaa isdirirtay oo macnaa waxa weeyaan dagaalka soo gabgaboobay, waxaan yidhi alxamdulilah haddayna shabaabba macnaa soo dhexgelin oo ayakii oo isgaraacaya ayna dhinac kale ka gelin. kuwaas baxsaday oo hadda kenya u baxsadana may baxsan kari lahayn. macnaa dhaawacyo badan ama dhimasho badan oo kale na way geysan kari lahaayeen. marka taas ilaah baan ugu mahadinaya inayna dhicin. marka waxa runtii macnaa waxa weeyaan macnaa waxa weeyaan wixii maanta dhacay waxay ahaayeen macnaa laba qolo oo muslimiin oo walaalaha oo isdirirtay. wain daa'ifatan min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa buu yidhi nebigu. macnaa ilaahay qur-aankiisa ku leeyahy macnaa laba daa'ifo oo macnaa muuminiin hadday isdiriraan dhexdooda magala oo islaaxiya macnaa. marka runtii kuwii dhintayna macnaa waxa weeyaan ilaahay labadoodaba wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin mu'miniin, oo hadda waxbaan gaalaysiinaynaa dhihi mayno. ilaaha ku tilmaamay inay mu'miniin yihiin. ilaahay ayakana hou dambi dhaafo, kuwii dhintayna ilaahay u naxariisto, kuwa oo macno kalena macnaa waxa leeyahay ilaahay hou booyo gadhayo. laakiin macnaa runtii khatar weyn ayay galeen. waxaaba sawirtay axmedow mararka qaarkood wildlifeka waxaan ka aragnaa laba rindiiroo geesaha isla galay oo kala bixila. laba macnaa biciid baan dhahnaa umalayna anaka biciida geeso waaweyn. kuwan weliba meelahan kale ku nool geeso fara badan ay leeyihin hadday isla galaan aan kala bixi karin. ayakii oo is haystaa marka libaaxii ama shabeelka u imanaya cunaya. marka tigii oo kale aan ka baqanaya, laakiin ilaahay ma ka dhigin. marka runtii waxa weeyaan wax macnaa dagaal aad iyo aad macnaa waxa dowladda siiba dowladda macnaa xasan sheekh iyo xamse ay maamulaan ugu ah macnaa waxa weeye ceeb ugu ah waaye oo runtii aysan kasoo waaqsan karin wixii maanta dhacay macnaa. su-aashayda ugu dambaysa oo hadda la xiriirta arrintan waxay la xiriirtaa ra-iisul wasaare xamse naftigiisa wuxuu ahaa sidaad sheegtay nin qayb weyn ka soo qaatay doorashooyinka ugu dambeeyay jubbaland. waxa ka dhisay axmed madoobe, sidoo kale axmed madoobe madaxweynaha jubbaland uu isaga wax ka dhisay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii. maamul goboleedka dabcan uu ka soo jeedayna ahaa. dagaalkan dabcan haddaa fiirisid inuu wax ka ogaa ciidankan inay xamar ka soo baxayeen iyo hadda dagaalkan dhacay saameyn ma ku samayn kartaa kursigiisaas iyo xilka uu u hayo dowladda federaalka soomaaliya? runtii macnaa waxa weeyaan xamse oo runtii 2 sano hore u muuqday macnaa waxa weeyaan
macnaa ra-iisul wasaarayaasha ugu macnaa macquulsan amaba macnaa waxa weeyaan ugu macnaa waxa weeyaan degan amaba macnaa marka uu hadlaayo ugu hadalka macnaa waxa weeyaan wanaagsan marka la fiiriyo aayadaha qur-aanka iyo waxyaabaha u deliishanayo macnaa taas ayaa waxaa ayaa haddana laakiin dagaalkan uu ka qaatay macnaa waxa weeyaan asaga hormuud ka ahaa macnaa dagaalkan markaa fiiriso xasan xataa hadduu dagaalka amray ninka u adeegsaday xamsu ahaa ninka ciidamada macnaa waxa weye jubbaland kala furfurayey ee dhahayay lacag baan idin siinayaa ka soo baxa garaadaan idin siinayaa ka soo baxa macnaa waday arrimahan asagay ahayd marka maanta dhacdadan ku dhacday waa dhici kartaa in macnaa ay u keento macnaa waxa weeyaan inuu xilkiisa ku waayo amaba asaga uu isku arko inuu xilkii wadi kari waayey oo markaas si macnaa waxa weeyaan sumcaddiisa uu calalaqal wuxuuna uga badbaadiyo inuu arrintan markaa hadduu arkay inayn soconaynin inuu iscasilana waa dhici kartaa in macnaa waxa weeyaan dowladda macnaa waxa weeyaan baarlamaanka iyo meelo kale kula xisaabtamaanoo dhinacaasna macnaa dowlad ahaan macnaa fashil ka dhacay oo ciidamadii macnaa jamhuuriyadda layska hor keenay in macnaa taas ay macnaa mooshinno iyo wax ka yimaadana waa dhici karta labadaba waayahay sharci ahaanha markaad eegtid markay noqoto dhisitaanka guddiga iyo doorashooyinka gobollada qayb intee la-eg buu ku leedahay federaalka mid ka mid a waxyaalaha laysku qabsaday waxaan maqalnay in ay tahay xasan sheekh inuu rabay inuu isagu maamulo doorashada ka dhacaysa jubbaland ama uu qayb uu ku yeesho dastuur ahaan ama sharci ahaan yaa xaq u leh inay maamulaan doorashooyinka ka dhacaya gobollada ma maamul goboleedkaa leh inay iyagu qabanqaabiyaan doorashooyinkaas mise qayb bay waxaa ku leedahay dowladda federaal runtii waxaa weeye axmedow meesha ay sartu ka qurunsantay waa meeshaas aniga horena waa usoo sheegay meeshaan sharci lagu heshiiyey oo dowladdana sharcigeeda tusinaya maamul goboleedkana sharcigeeda tusinaya ilaa hadda lama soo saarin macnaa waxa weeyaan si ay ku kala baxaan male waa un la magacaabay marka inta la magacaabay maamul goboleedyada dastuuray leeyihiin wasiire macnaa dowlad guddiga fulinta macnaa wasiiray leeyihiin waxay leeyihiin baarlamaan u gooniyahay leeyihiin garsoor u gooniyahay leeyihiin waxaasoo dhan waxaa la rabaa in kii federaalka iyo ayakii la iswaafajiyo intaan la iswaafajinin sida macnaa waxa weeyaan garoowan iyo garootu lagu cabiray intaan la iswaafajin dowlad goboleedka dastuurkiisa ayaa u madax bannaan doorashadiisana laakiin haddii la iswaafajiyo oo macnaa shuruuc lasoo saaro waa in dastuurada macnaa waxa weeyaan oo dastuurkeennana la dhammaystiro waa in dastuurada macnaa maamul goboleedyada la waafajiyaa dastuurka weyna guud marka wixii oo dhan shaqadaas oo dhanba intii la qaban lahaa madaxweyne kasta wuxuu u ordayaa siduu asaga kusoo noqon lahaa ma shaqooyinaa meesha yaalla macnaa wax kala bixinaya male maamul goboleedka iyo dowladdii federaalka macnaa ana amiir wa anta amiir weliba magacii madaxweynahana waa isla wataan ogow madaxweynaha waa isla wataan dacwadihii iska soo saareen nin walba wuxuu yiri ninka kale la soo xiro ninka kale soo xiro fariinta ugu dambaysa haddaad fariin halkan uga diri lahayd ama madaxweynaha dowladda federaalka ama madaxweynaha aan dhahde maamul goboleedka jubbaland maxay ahaanay runtii horta labadoodaba maanta fariin baan macnaa waxa facebookgayga dhigay oon u diray macnaa oo ku saabsan laakiin dagaalkan ku saabsan haddana mid kale ayaan macnaa barnaamijkan ugaga faa'iidaysanayaa inaan u diro labadoodaba madaxweyne xasan sheekh oo runtii saan maqlay aniga ugu maqaalaa inaanu iskulood ahayn dugsigeenni dhexe isku dugsi dhexena aan ka baxnay dugsiga dhexe ee 21 October 1975 aan ka baxnay waxaan u diri lahaa madaxweyne waa soo noqotay madaxweyne labaadna waa soo noqotay marka waxa weeyaan
tii saddexaadna rabbaa og inaan noqonaysi in kale laakiin macnaa waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa inuu legacy ka tago oo weliba legacykaas anigu kusoo xasuusto dhow waa ardadii dugsigayga 21 October oo uu dalkan wax ugaga tago dalkan macnaa waxa weeyaan waxyaabo badan ayaa macnaa mustaqbal fiican uu leeyahay dalkeena hadda 15 sano soo socota haddii la helo leader fiican macnaa waxa weeyaan barwaaqadeena oo dhan aan la soo bixi karnaa oo dadkii hadda dabadda waa noo dihin yihiin macnaa waxa weeyaan inay barwaaqooyinka noo soo saaraan marka taas waxaan dhihi lahaa xasanow macnaa intaa ka baxdo waxyaabahan yaryar ee macnaa waxa weeyaan dunoowiga ah ama danaysiga ah intaa ka baxdo u noqo macnaa waarimay sida war ha kaa haro oo kor uga kac upgrade c macnaa waxa weeyaan isna soo sax hadda macnaa khaladkan maanta aa gashay macnaa ka soo noqo والرجوع إلى الحق معناه حويان وحق واي معناه إنها كسر نقطة والتمادي بالباطل باطل واي حماها دا كنت أجنات وحمؤون لكن دا كسر نقطة ومعناه حوي النعمة واي مركا واحد معناه شاطئ عطلنيس كسر نقطة أنت عاد معناه سمعة مدحويني لبعض صوماليا معناه حوي لحدا كسنة جرتو مدحويني مر لبعض صار نقطة تاني مركا إن عاد معناه حويان aadan iska dhigin macnaa waxa weeyaan legacygaas inaanu dhumin ayaan kuga talinaa madaxweyne axmed maxamed islaan oo anigoo aan aaday 3 wiil ka hor aan hor fariistay markaan Kismaayo joogay isagana waxaan dhihi lahaa markaasna aan ku iri macnaa waxa weeyaan doorashadan xataa hadday dhacdo ilaahay kuu sahlo aa qabsanayso hadduu ilaahay kuu sahlo ha ka dhigin sidii 13 sano hore oo macnaa waxa weeyaan macnaa gobol xiran gobol macnaa laba gobol si kala ah oo gede iyo jubbooyinka kala ah oo macnaa waxa midaysnayn oo kala qaybsan oo khilaaf ka dhex jiro oo la isdhex maraynin macnaa waxa weeyaan ha ka dhigin macnaa waxa weeyaan gobol aan horumarsanayn oo macnaa waxa weeyaan aan la dhisayn magaalada Kismaayo waxay u baahan tahay in la dhiso in macnaa la maalgashado in qurbo joogta soo noqoto in ganacsatadan Kenya soo noqdaan siday ugu soo noqdeen macnaa waxa weeyaan garoowe kale hadda garoowe macnaa waxa weeye stateska laga dhisay macnaa xawlaadda amal dhistay caqligaaga diiday macnaa waxa weeyaan waa magaalo dhan waay marka waxa weeye saas in loo soo dhiso oo aad wixii kala furfurto oo aadan noqonin macnaa keliya magaalo yar dekad yar airport yar macnaa waxa weeyaan inaad macnaa saas samayso ayaa asagana kula talin lahaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sheekh saahid siyaasi aqooyahana oo maanta barnaamijkayagan noogu waramayey xildhibaan horena sidoo kale ka ahaa dowladdii xilligii sheekh shariif dhowaanna ka yimid magaalada Kismaayo oo isagu markaa muddo ku maqnaa oo noogu yimid idaacadda aanuna ka wareysanay bal xaaladda ugu dambeysay dirirta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka goboleedka Jubbaland ku dhex maray meesha loo yaqaano ama magaalada Raaskambooni barnaamijkeega haddii ilaahay idmo intaasaan ku gabagabeynaynaa waxaan u mahadcelinayaa mar kale sheekh saahid sidoo kalena saaxiibkay ilka case oo barnaamijka xagga farsamada nagala shaqeynaya isagana aad baan ugu mahadcelinayaa insha allah waxaan rabnaa barnaamijyada siyaasadda Soomaaliya arrimaheeda aan kaga hadlaynaa inaanu haddii ilaahay idmo aanu badino si ay dadka ula socdaan xaaladaha marba ka taagan arrimaha Soomaaliya aad baad u mahadsantahay mahadsantiis salaam calaykum salaam saaxiibo tawiin maarag